Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay asxaabta halkan ku xidhan meel kasta aad joogtaan. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qiso runtii cibro qaadasho mudan oo cajiib ah. Haddaba qisadan ku soo dhawaadaan leeyahay daawasho habboon. saaxiibayaal soo dhawaada mar kale. Qisadeena waxay ka dhacday magaalada Qaahira ee ku taala waddanka Masar. Caasimadda Qaahira weeye. waxaana ku dhacday wiil 25 jir ah. wiilkan waxa uu ahaa arday jaamacadeed, wuxuuna ku jiray jaamacadda fasalkii ugu dambeeyay oo sanad baa uga harsanaa qalin jebintiisa. jaamacaddan wuxuu ka dhigan jiray qaybta caafimaadku ayuu baran jiray, wuxuuna doonayay inuu dhakhtar heer caalamiya u noqdo. haddaba muddo markuu halkaa ku dadaalay, dadaalkiisa wuu isugu geeyeyba aakhirkii jaamacaddii uu qalin jebiyey, waana uu ka soo gudbay waqtigeedii. halkana wuxuu ka qaatay shahaado aqooneed oo aad u sarreysa uu ku shaqo tegi karo. haddaba muddada markuu qalin jebiyey uu shahaadadiisii ka qaatay halkaa, ugu dambeyn shaquu raadsaday. shaqadii wuu helay, wuxuuna ka helay magaalada Qaahira lafteeda, wuxuuna noqday dhakhtar ciyaartooyada daweeya. dhakhaatiirta har iyo jeer ciyaartooyada daweeya ayuu noqday. halkaasuu muddo ka shaqaynayay. bishiina wuxuu qaadan jiray mushaar ahaan 40 geni oo lacagta Masar ah ayuu qaadan jiray bishii. mushaar ahaan ayuu qaadan jiray. haddaba wiilka noloshiisa waxaa soo dheeraa, wuxuu lahaa guri hanti ah iyo gaadhi isagu leeyahay. qaab ahaanna waxaa wiil xarago badan oo soo jiidasho leh. intaan waxaa soo dheeraa waxaa wiil kaftan badan oo furfuran oo qofkii cusub si yaro fudud ay isku dhexgeli karaan oo isbaran karaan. intaa waxaa sii dheeraa xaasawa dumarka yaraannimo ayuu ku bilaabay. markuu ahaa 15 jir ayuu haasaawi jiray. siduu soo sheegay, dumar badan ayaa oo kala jaada ayuu xiriir igaga dhexeeyay buu yiri. xiriir qoto dheer baa la lahaa. hase ahaatee, iyadoo sidaa tahay, maalin maalmaha ka mid ah isagoo shaqadiisii ka soo rawaxay ayaa waxaa dhacday inan bay isbarteen. oo markuu shaqadii sidaa uga soo baxay oo dhankaa gurigiisa u soo socday ayaa inan laamiya isku barteen. halkaasayna inantaas ay ka wada xidhiidheen. inantan markuu muddo wala hadlayeen ayaa isla markiiba isfahmeen, ayay iyadu xidhiidh u soo bandhigtay. halkaasina xidhiidhkoodii ku asaasmay. hase yeesheen isagu xidhiidhkaas wax jacayla uu muuhayn, laakiin iyadaa jeclaatay inantaasu, iyadaana halkaa ku jeclaatay. muddada xidhiidhka inantaa kala dhexeeyey, haddana xidhiidhkii inanta wuxuu uga sii gudbayba inuu xidhiidh kale uu sii samaysto. wuxuu ay isbarteen inan ka shaqayn jirtay goobtaas ciyaartooyada ku daweyn jiray. inan joogta ayuu halkaas ka bartay. inantaas goobta ciyaarka joogta wax jacayla iyaduna umay qaadin, balse wuxuu siduu sheegay, wuxuu yidhi waxaan wada raaxaysan jirnay inta ay 2 qof ay wada raaxaystaan oo waqti ayaan wada qaadan jirin. marba xidhiidh buu sii dhiibayay. waa halkan dhalinyarada dambe ay dhahaan shamna raac weeye ninkaas. isagu wuxuu ahaa nin xidhiidhada u sii kala gudba. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa laamiya, isagoo shaqadiisa ku sii socda ayaa laamiya wuxuu ku arkay inan ka tallaabad. inantaasu iyadu waxay ahayd inan calaamadaha yare baabuurta loo dhigo, marna dadku marayaan marna baabuurta ay marayaan. calaamadahan wadooyinka ku yaala, marna baabuurta maraan marna akhtarga casaan isku bedel. waxay maraysay baabuurta marayeen laamiya. inantaas ayuu ku arkay iyadoo laamiya dhinaciisa taagan. lambaradii ayay kala qorteen, kula soo xiriiraya. inantaas muddo ku siman siduu sheegay isagu 8 bilood
ayay wala hadleen buu yiri. Markii aan u soo bandhigay, markii aan si kastaba u galay buu yiri, aan ku yiri waxaan ahay boqorka aan la barqin ee ka taliya wadnayaasha dumarka gashaantida ayaan ahay, sideed ugu diidi karta? Si kasta waan u galay buu yiri, balse wax jacayl iyadu imay ay qaadeen, aanun baan iska jeclaaday buu yiri. Anaa jacayl u qaaday, balse iyadu imay jeclaan. No, God, please, no, no, no. I'm sorry walaal. Markaa inankii waxa ku dhacday inay unantii ka daba calacalo, balse iyadu wax aana jacayl u qaaday. Hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyay, imika quus ayaan imika ku noolahay, jacaylkii waan ka iimaan baxay, murugo ayaan imika ku noolahay, maxaan sameeyaa? Maxaad sameyn lahayd oo dhan? Haddaba qisadan xogta yar kooban ayaan ka helay, waxaana ka dhacday magaalada Qaahira, caasimadda Masar, wadanka Masar oo garanaysaan. qisadan xogta yar kooban baan ka helay. bal haddaba maxaan ka faa'iidi karnaa qisada horta halka aan ku soo xidhno? daba maxaynu ka faa'iidi karnaa 10 qisada? Odhaaho ahayd jacaylka ninku waxa uu soo gabagaboobaa marka uu isku hubsado jacaylka gabadha. Marka uu soonow wiilkanu dacdadiisa ka warramay, gabadha isaga iska jeclaaday, isaga ku naxsanaaday, balse iyadoo wax ba uma hayn, wax jacayl uma hayn, ayay ka yaabtay soo dhiiranaantiisan uu ku soo dhiiran yahay, ayay iyaduna ka gaagaabsatay. Marka qofka bilaadanka waliya hadda jeclaanaysid, qof dhiiran lama noqdo, jacaylkaaga banaanka lama soo wada dhigo, oo yara dareensiya aduu jacaylka banaanka lama soo dhigo. haddaad laakiin u sheegatid oo tiraadid waan ku jecelahay, waan ku dhimanaya, marka waa maalintii kugu dambeysay hoogaagu halaagaaga. marka waxaan odhaadan ka faa'iidi karnaa qofka hadda jeclaanaysid jacaylka u soo bandhigin. laga yaabaa jacaylka markaad u soo bandhigatid inuu si qalbiga kaaga yaro bilaadan. haddaba bilaadantinimadaada ha ku waayin qof aad maalin isbarateen oo ka tagay. bilaadantinimadaada ha ku waayin qof aad maalin isbarateen oo ka tagay. odhaabaheed baddu waa wada kalluun, haddaad mid la weydid mid kalead helaysa. oo macnaheedu tahay haddaad qofkaas aad jeclaatay uu kaa tagay uu ku nacay, dee qof kale waayi maysid. haddaad inaan ahayd inaan waayi maysid, haddaad inaan tahayna inaan kale waayi maysid. marka noloshaada hal qof laguma soo koobo, lamana calaacalo. qofka kaa tago dee laga yaabaa wuxuu kuu jeclaa ama wuxuu kuu jeclaaday markuu kaa waayey wuxuu kaa doonayay iskaga kaa tegi karaaba. odhaa kale ahayd muuqaalkeenu dabcan waa wada xikmade. ha u murugoonin waxa aad weyday, laga yaabaa haddii aad sii haysan lahayd inay murugadu kugu sii badan lahayd. oo macnaheedu tahay markaa qofkan kaa tegay waxba ha ka daba calaacalin, ee laga yaabaa tegitaanka uu kaa tegay inay farxad kugu jirtaba. hadduu kula sii joodi lahaa murugadaa kugu sii badan lahayd baa laga yaabaa, kurbada. markaa farxad baa kugu jirta, tegitaanka uu kaa tegay baa laga yaabaa. odhaadaasuna waxyaalo badan ayay soo hoosgelaysaa. haddaad waxaad calaf ku lahayd weyday, waxba u murugooni, laga yaabaa inaanay farxadba waxaas farxadba kugu jirin waxaas aad weyday. marka muuqaalkeennan intaasuu ka heliyahay tusaalaha iyo taladaasna aan ila wadaagay. idinkuna wixii taliyo tusaalaha commentida nagu reebaysaan. waxaan ii baraarujinayaa asxaabta ku cusub channelkan subscribe saara, haddii hore noola joogteen muuqaalka leed saara siduu dad badan u gaadho. inta muuqaalka xiga aan isugu imanno hadduu ilaahay ka dhigo subxaana wa tacaala, waxaan igaga tegayaa ammaano allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.